صاحب هذا البيج كعب صبتحي ندي رجع وده سبسكرايب لايك يا شير. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. عشر كنا مانت وعشر كيلوات وحكوسة بسية هنا فقد درت أباهنتهاي وحن كهل دونا عريها اللي يرهدو النيتروجين. نيتروجين ومحي نيتروجين وعريها تضباد كالجلك عرياشا. نيتروجين ونيف waxay hawada atmosfeerka ka tahay 78% tira atomkeedu waa 7 halka culays atomkeedu ka yahay 14 kaaftoonkeeda ugu caansanna waa -3 nitrogen waxay korisaa qaybaha cagaaran ee dhirta haddaba si aan u helno koriimo isu dheelitiran waa inaan helnaa xaddi munaasab ah oo ah nitrogen nitrogen-ta waxaa si caadi ah looga helaa carrada bacrimiyaasha organikada ah iyo kuwa kiimikada ahba bacrimiyaasha laga helo nitrogen waxaa ka mid ah urea 46% waa nitrogen ammonium nitrate 33% waa nitrogen ammonium chloride 26% diammonium phosphate ama DAP 21% ammonium sulfate oo ah 20.5% sodium nitrate oo ah 16% calcium nitrate oo ah 15.5 potassium nitrate oo ah 13% iyo monoammonium phosphate oo ah 11%. waxtarka nitrogen ay u leedahay dhirta nitrogen waxay ka qayb qaadataa dhismaha maadooyinka borotiinka ah nitrogen waxaa loo arkaa inuu yahay curiyaha ugu muhiimsan ee protoplasmka protoplasm waxaanu la jeednaa unuga marka loo kala qaado qayb nool iyo qayb aan noolayn qaybta nool ayaa waxaa loo yaqaanaa protoplasm nitrogen marka waxaa weeyaan curiyaha ugu muhiimsan ee ku jira protoplasmka wuxuu ka qayb qaataa dhismaha cagaariyaha chlorophyll ama cagaariye waa maadada enerjiga cadceedda u bedesha cunto ay dhirtu ku noolaadaan bani aadamkuna ay quutaan wuxuu ka qayb qaataa dhismaha walxaha ugu badan ee ubaxyada iyo miruhu ka samaysan yihiin nitrogen wuxuu ka qayb qaataa dhismaha iyo sameynta waxyaabaha ugu badan ee ubaxyada iyo miraha dhirtu ka samaysan yihiin wuxuu kontaroolaa awoodda geedku u leeyahay soo nuugidda fosfoorka iyo potassiumta wuxuu ka shaqeeyaa koriimada dhirta gaar ahaan marxaladda bilowga koriimada calaamadaha muujinaya in nitrogen-tu ku yar tahay dhirta koriimada geedka oo yaraata ama joogsata xaaladaha nitrogen-tu aad u yaraato xajmiga caleenta oo yaraata midabka caleemaha marka hore wuxuu noqdaa cagaar khafiif ah kadibna wuxuu isu rogaa jaalle ama hurdi ama kafee khafiif ah astaamaha nitrogen yaraantu dhaqso ogama muuqato caleemaha cusub macnaha caleemaha kore kama muuqato calaamadaha nitrogen yaraantu waxay marka hore ka muuqataa caleemaha gunta xiga caleemaha hoose oo waxay yeeshaan midab jaalle ah haddii nitrogen-tu aad ugu yaraatana caleemaha hoose way qalalaan kadibna way dhacaan oo geedka ayay ka dhacaan intaa kadibna isbeddelku wuxuu u gudbaa caleemaha sare ama caleemaha cusub ee ku yaala geedka baarkiisa laamaha geedku waxay noqdaan kuwo adag dhuudhuuban midabkooduna wuxuu noqdaa casaan ama kafee waxaa suuragal ah in dhirta qaar marka ay ku yaraato nitrogen-tu ay yeeshaan midab kale oon ahayn chlorophyll waxaa loola jeedaa aan cagaariye ahayn ama aan cagaar ahayn tusaale ahaan yaanyada marka ay nitrogen-tu ku yaraato waxaa ka muuqda midab bunfusji ah midabka bunfusjiga ah
fiir cursor-ka aan dhaqaajinayo ubaxa hoos ka muuqda midabkiisa ayaa waxaa la yiraahdaa bunfusti. tusaale ahaan yaanyada marka ay nitrogen-tu ku yaraato waxaa ka muuqda midab bunfusti ah luqunta caleenta iyo xididadeedaba. mararka qaarna midabkaasi wuxuu ka muuqdaa laamaha. midabka bunfustiguna waa ubaxan ku muuqda midabkiisa ayaa loola jeedaa. geedka galleyda waxaa ka muuqda nitrogen laan. waxaad arkaysaa caleemihii hoose inay jaalle isu bedeleen ayba qalaleenba kuwii ku xigay. saas ay ugu soconaysaa ilaa meesha ugu sarreysa midabka jaallaha uu ka gaarayo. sidoo kale yaanyadan kuu muuqata iyo geedka liinta ee kuu muuqda ayagana waxaa ka muuqda waa nitrogen yari. adoo aada u mahadsan na dhiirigeli oo dheh subscribe, like iyo share. aad baad u mahadsan tahay. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. casharka kan xigana wuxuu noqon doonaa phosphorus ayaan kaga hadli doonaa insha allahu tacaala.